waxaan u nimid halkan aan qayb ka ahaa wafdigii uu ra'iisul wasaare xasan cali khayre watay ee Soomaaliya ka yimid waxaan niman ka qayb galay shirarka dhaca xilliga guga hay'adda lacagta adduunka iyo bangiga adduunka anaga gaar ahaan Soomaalida shirarka waxaan naga khuseeyay maadaama waddanku dan cafis ku jiro processkaas in aan nimaano oo qolihii IMFT hay'adda lacagta adduunka iyo bangiga adduunka iyo dhammaan aan wada hadal ka galno meesha wax marayaan iyo qaybta dhiman hawshaas sidii aan wada shaqayn lahayn saas lamida waxaanu la kulanay dad fara badan oo Soomaaliya danaya dowladda Mareykanka madax ka mid ah la kulanay maanta ugu dambeysay waxaan tagnay aqalka cad oo ra'iisul wasaaraha uu kula kulmay la taliyaha madaxweynaha waxaan sidaas oo kale balansanahay inaan la kulano wasaaradaha arrimaha dibadda iyo difaaca iyo hay'adda USAID wasaaradda kalena maanta waa la sarkay marka runtii shirar aad fara badan iyo arrimo fara badan oo danta qaranka ah oo waddanka dan ugu jirta ayaan maalmahan u joognaa halkan hadda sidaad ka warqabtid shirarka hadda la soo dhaafay waxyaalihii guulihii laga gaaray xisbigan horumarka laga sameynayo dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca amniga ayaa la soo bandhigay dadkii halkaa joogay wadamada caalamka wada shaqeynayay oo dhan waa isla qaadanay talaabooyin cusub inaan wada qaadan oo ku heshiin waxaan oo dhamaatay qaybtii hore waxaana SMP-ga loo yaqaan kii ugu dambeeyay oo ah ECT waxa la yiraahdo qaybta ugu dambaysa ayaanu gelnaa 6 bilood soo socota dhamaanaya haddii alla waa meel oo critical runtii aad iyo aad muhiim ah shuruudihiina la ku xiro dhanna waa laga soo baxnay oo bishii saddexaad soo dhaafnay 31 ka rabay dhammaan waa ka soo baxnay waxyaalihii yararkaan oo dhanaana sidii aan ugu heshin lahayn ayuu si gaar arrintan ugu khuseysay sidoo kale meesha wadankii hawlo amni la bilaabay operationno argixisada lagula dagaalamayo sidii aan taageero caalami ugu heli lahayn arrimahaasna waa ka wada hadalay marka aad ba arrintan runtii shirarkan Soomaaliya dan weyn ugu jirta waxay doonaa dal wadankan ku noqonaynaa wixii aan halkan kala kulnayna wax gaarsiinaa madaxda kale talaabooyinkan ku heshiinay fulintooda sidii aan wadanka horumarkiisa u dadajin lahayn ayaan ka hawlgalnaa dawladda maadaama shuruudihii oo dhan ka soo baxnay waxaan isla garanay talaabada ugu dambeysay ee lagu soo gabagabeynay mashruuca SMP-ga inaan isla gaarno mashruucaas oo soo dhamaanay sanadkan waxaan la kulanay madaxweynaha bangiga adduunka oo shirki maalintiisa ugu horeysay shaqo bilaabay oo arrinta Soomaaliya uu nagala shiray shalay ugu horeysay taa waxa ku tirsan culayska la saaray markii ay qiimeynay waxay arkeen waddanka ugu fiicnaan noqonayna hadii aan ku soo gabagabeeyno muddada loogu talagalay oo ah sanadkan gudihiisa inaan hore arrimaha kale u dhici jirin marka waxay leeyihiin aad buu nasiib badantiin shaqadan qabanay dadaalkii la gaaray daraadeed wax badan ayaa runtii ayaa nala ogolaaday insha Allah rajeynayna hirgelin waxaan marinayaa dadka Soomaaliyeed inay u bishaareeyo in waddanku meel fiican u socdo hadii alla idmo arrimaha amniga socdaan lagu guuleysan doono dhaqaaleena heer fiican la gaarsiiyay sababta halka uu joogno ah in soo gabagabeeyno arrimaha dhaqaalaha iyo security-ga iyo waxyaalaha heshiisyo weyn aan safgarad aan dad badan la gaarana meel fiican noo marayaan insha Allah rajeynayna inaan hawshaas ka mara dhalin doono hadii alla